بسم الله الرحمن الرحيم أخيرت جالسي سو دواada mar kaleente maanta waxaan kaloo qaadan doonaa cashir kale oo muhiim ah oo ku saabsan maadada Excel series maanta waxaan baran doonaa wax loo yaqaano workbook iyo worksheet siyaabaha ay u shaqeeyaan iyo waxyaabaha ay qabtaan workbook waa faylka weyn ee uu leeyahay Microsoft Excel-ka ee shaqada oo dhan ee ka dhacda markuu cashirkan dhamaado haddii alla idmo waxaad baran doontaa muxuu yahay workbook sidoo kaleete waxaad baran doontaa sidee loo abuuraa workbook cusub waxaan kaleeto ku baran doonaa sidee loo maamulaa worksheets kala duwan markii aan joogno barnaamijkan Microsoft Excel kusoo dhawow cashirkeena maanta markii aan soo kicino sida caadiga ahayd Microsoft Excel-ka wuxuu leeyahay interface-kan ugu horeeya interface-kan marka halkan ugu horeyso waxaa loo yaqaanaa workbook waa halka shaqada dhan ee ka dhacayso gaarsiiyad wuxuu noqonaa workbook weyn ee leeyahay Microsoft Excel haddii aan rabno marka mid cusub inaan soo keeno cashirkii ka horeeyana waa ku baranay haddii ay kuugu jirto quick access toolbarka new qaybtaas ayaa ku dhufan doontaa kadib waxaa kuu furmi doono new workbook isoo qaadan doono command-iga ama amaradii hore aa u siisay quick access toolbarkii horeete systemka ama softwareka kugu jiro computerkaada marka so haddii kaleeto waxaa kasoo furi karnaa halkan inaan fail nahno then aan soo galno halkan blank waxaa kaleeto dooran kartaa maxaa la yirahdaa qolooyin hore u diyaarsan oo templates ah midba hadba waxaa u baahan tahay haddii aad templates intaa ka badan aa u baahan tahana waxaa leedahay mo dhammaan halkaas ayaa keli doontaa templatesyada uu leeyahay Microsoft Excel-ka badanaa waxaa la isticmaalaa blank workbook then waxaa leenahay blank waxaa inoo furmay new workbook oo diyaar u ah inaan adeegsano marka workbook waxyaaba ugu waaweyn uu leeyahay waxay tahay waa columns oo loo yaqaano xarfaha ABC ku socdaan iyo waxa loo yaqaano rowskana waa numberska meelaha ay ku socdaan meel kasta ay ku kulmaan column iyo row waxaa loo yaqaano cell halkan aan taagana hadda C5 waa cell oo name boxka inoo sheegayo marka haddii aan halkan kaleeto C2 waa cell haddii kaleeto E4 waa cell B4 waa cell B7 waa cell waxay noqonaysaa halka ay ku kulmaan rowga iyo column-ka wax loo yaqaano waxaa kaloo jira workbook marka laga soo tago waxa loo yaqaano sheets ama worksheetska waxaa waaye buugaga oo yeelan doono workbook-gaaga wuxuu la mid yahay barnaamijkan buugga caadiga oo kale intaa buugga weyn waa workbook oo shaqada ay ka dhacayso bogag gudihiisa ku jirana waxaa loo yaqaanaa worksheet hadda bogga koowaad oo noo samaysan worksheet 1 waa kana haddii aan calaamadan plus aan taabano waxaa noo furmi doona worksheet 2 haddii aan markale plus dhahno waxaa noo soo furmi doona worksheet 3 ilaa inta aad u baahan tahay worksheet ay halkaas aad kusoo darsan karaysaa marka si aan marka aan ugu sameyno ama u kala aqoonsano sheetskani waxaa la isticmaalaa badanaa naming in magac loo bixiyo tusaale sheetka ugu horeeya inaad dhahdid waxaa ugu talagalay waxyaabaha dakhliga soo gala haddaad ganacsado tahay sheetkan labaad waxaa ugu talagalay magac markaad rabtid inaad ku qortid laba way ayaa ugu qori kartaa inaad double click dhahdid oo aad sidaas ugu qortid halkan waxaan ku aruurin doonaa qarashaad si aad hadhow u kala ogaatid sidoo kaleeto magac waxaa ku samayn kartaa inaad right click dhahdid then aad dhahdid name halkan waxaan ku samayn doonaa qori doonaa wixii faa'iida inoo yimaado waxaa kaleeto awoodaa worksheetska haddii ay kugu bataan ama mid kamid ah howlahaada ka dhamaysato inaad iska delete kartid waxaa leedahay right click then waxaa leedahay delete waxaad samayn kartaa moving oo inaad move garaysid oo ka hormarisid kuwan kaleente ay ku samayn kartaa waxaa kaleeto ku ogolaanaa inaad aad copy garaysid Excel sidoo kaleeto haddii aad rabtid inaad move garaysid waxaad samaynaysaa kaliya halkaas ayaa u wareejinaysaa meesha aad rabto ayuu tagayaa marka aad delete rabtid halkaas ayaad ka delete garan karaysaa isla halkan adoo joogo waxaa insert dhihi kartaa mid cusub ama waxaa soo geli kartaa waxyaabo cusub oo worksheetkaaga aa u baahan tahay ama worksheet cusub ayaa kusoo biirin kartaa marka waxyaabaha kaleeto oo leeyahay waxay tahay inaad kalarka worksheetkaaga aad bedeli karaysid oo kalaro kala duwan aad u samayn karaysid si aad u kala aqoonsatid sheet kasta iyo waxa uu yahay mid walbana waxaad siin kartaa kalar gooni ah hadhow markii aad soo geshid
waxaad ogaan doontaa halka aad joogtid ama worksheetka aad ku shaqaynaysid. Waxaa kale intuu halka ay ku ogol tahay sheets qaarkood inaa hiding aad ku sameyn karaysid oo aad qarin karaysid. Markii aad u baahatidna unhide dhahaysid kadibna waxaad sameynaysaa inaad soo furatid. Maanta waxaan baranay sidee workbook cusub loo sameeyaa, workbook sida u shaqeeyaa, sidoo kaleete worksheetska cusub sidee ugu soo darsan karaa, color u sameyn karaa, magacana u bedeli karaa. Waa inoo cashirkeena dambe haddii Alla idmo. Mahadsanid.